وحامي سبحان الله برعو oo ah degmadii ugu horeysay ee Soomaaliland degmanimo loo aqoonsado oo ah meeshii ugu horeysay ee xara ciidan laga dhiso meeshii ugu horeysay ee Soomaaliland dhakhtar laga dhiso wuxuu ku yaalaa qolada aan hadda eegaysa wuxuu ku yaalaa xerada militariga dabadeedu ku yaalaa waa labankii cascasaa ee kan maaha ninkii ciidanka ugu darajo sareeyay Soomaaliland ee Ingiriiska bayskiisii meeshuu fadhiistay gaalkii ugu horeeyay meeshii lagu dilay meeshii ugu horeysay ee Ingiriis lagaga hor yimid meeshii ugu horeysay ee nin sarkaala oo ka soo retire garoobay Hindiya intuu yimaado Xaaji Muuse Igari uu yimaado oo major agaashaanle Hindiya ka soo retire garoobay oo loogu soo qori jiray marka governorka la soo magacaabo baa lagu soo qori jiray boqorada ama boqorku la tasho major Xaaji Muuse Igari sarkaalkii ugu horeysay ee Soomaaliyeed Somaliland ee kulliyad galo akademigi halkan uu ka soo jeedaa waa Xasan Kayd sarkaalkii biliiska ugu sareeyay ee Somaliland waa in hala halkan uu ka soo jeedaa aabihii waxbarashada Somaliland محمود أحمد علي هل كانوا كسوتشين سيدك أو تاريخنا الصومالي ذو هداد قشو انسيكلوبيديا دادك أف صومالي قوها الله أما نبعاو أما تشعلاو وقفك كلية تاريخ صومالي اقلوب على له وحو كسوتشين قبل كتوك ده أو وحو كنا شيء بوهول بينا سداعي haddaan dabada qabto hadda 3 maalmood baan ka hadli karaa waxay burco koow ka tahay gobolkii nooca ahaa ee ummadda taariikhdeeda caalamka marka laga hadlayo wixii ugu badnaa ee correspondence Ingiriis iyo uu ka sameeyay dawladda Somaliland protectorate markaa wuxuu ahaa dagaalkii dul madoobe la oran jiray ee koofi lagu dilay maxamed xaaji ibraahim cigaal ayaa maalin intaan wasiirka u ahaa wuxuu igu yiri gobolka Togdheer waxa lagu tijaabin jiray wax kasta oo isbedel laga rabo in lagu sameeyo waxa lagu eegi jiray magaalada Burco in dadku ogol yahay iyo inaanay ogolayn hadday Burco diido macnaheedu waxa weeye Somaliland oo dhani waa diid hadday Burco ogolaatana macnaheedu waxa weeye Somaliland oo dhani way ogolaataa war maragiiba iyo dumarkii yaa lahayn waxay tahay su'aasha in Burco isweydiiso in loo baahan أنا برع سؤال إسويديسو إن لو باهي أو أي تاريخنا بلديب أراعا برعو وحي هاي مقالة مدح إلى 19 كل سقال بقولي سيديدي وحي مقالة مدح هاي قبل الله بري أنا قاوي على كوري halkan 1938 baa eragaabo mushaarkiisa laga soo jarayo waxa la keenay Burco waa eragaabo ku xigtay degmo la aqoonsado Ingiriis aqoonsado mar meeshay tan ka ahayd 1908
عرقابه كن سقال بقول يلحي اللواتن كي بعد دقمن لقى دقة أفرتك كلنا صدق يا أفرتك دقال كي كواد دونك بربرة هرجيسة بوربة يلا سعانو أفر يا أفرتك كي صدق يا أفرتك كي بعد دقمن لقى دقة ما لا يرى الشيخ ما وحلو استعمال شيء إنجليز كوبحية سناتوريال بليس يعني ما لا يكون نستع ميسان كأوجب بدن السومالي لنا مقالدنا لقى حكومة هذا إن لقى حكومة عيت كان عسى كأوجب بلارنا أمدلاد هاي حوله هايو هل كان يحيد بسكين الله ونعست عبد الرحمن دعاله نقدميها بانك هنجرو نور عرقابي وحو إيشاقي إن عرفوينك dalkii la isku oran jiray Soomaaliya burco marka laga hadlayo bangiga burco wan baa la oran jiray marka ay rafadu soo gaadho waxaa la soo diri jiray agaasimaha guud ee bank waxaa iman jiray agaasimaha guud ee ganacsiga iyo agaasimaha guud ee maaliyadda ya laanta burco fariisan jiray saddexda agaasimo guud baa xamar laga soo diri jiray halkan fariisan jiray 16 gobol 18 gobol ee Soomaaliya la isku oran jiray inta laga bixiyo burco lacag ya ka badnayd laanta burco ya inta kale ka badnayd saasay burco u liir gareyn jirtay wax kasta oo qaran ummad haddii SNM laga hadlo iyada liir gareysay haddii Soomaaliland ku dhawaaqisteedii ay noo soo noqonana warbiyada halkan laga dhawaaqin waa maxay hadaba maxaa dib inoo celiyay haddaad aragto waxaan idinku idhi haddii gobonnimo jirto inta hogaaminaysa unba abuurta haddii cuqdadi timaadana inta hogaaminaysa unba cuqdadooday haddaad aragto dhulbahante iyo habar yoonis leh waana la haystaa inta u saraysa unba cuqdada qaaday waa failure waxaa guul daraystay siyaasiyiintii la rabay inay deegaanka iyo dadka hogaamiyaan yaa guul daraystay ee aan anigu ka mid ahay ee ma aha shicibka gabadha wiilka odayga aqoon-yahanka dhallinyarada maaha waxaan isweydiiyaa سؤال waxaan maqlay maanta cid baa jamaad baa baxday hebel baa tigi war xagga anaga joogno hadday khayr leedahay waa joogi lahay waxaad kaloo isweydiinaysaa haddii tan la isugu jamhadaynayo war bal kelmadayna aad u dhageysta Somaliland waliba beesha dhexe waxay u sacrifice garaysay dagaal adag oo ummadda naf iyo maalba lagu waayay dagaalku siyaabo kale buu deegaamada kale u gaadhay laakiin waqti adag waxaa dagaal lala galay ciidankii Afrika ugu xoog weynaa taariikhdu waxay qortay ciidankaasi in SNM ka xoog weynaatay SNM marka la leeyahayna waa inta dhexe waxba ma qariyo anigu runtan sheega waxaa ku xoolo waayay dad aad u badan ummad badan baa ku naafowday hanti badan baa ku baxday dad badan baa si dayaca u dhintay dad badan baa xabadilaysa kuwa badan baa daawo la'aan u dhintay waxaasi inay dhashaa maxay tahay
وإن يدشا فكر كي لو سعودي وإنه نقضى من الدل أو كو عدالة صارت واحد لقاها اللي الدجال كان يسلم الله قال يسوي عدالة ما هي وربيانا هاي هدي أي شرطه واحد هذي يربعها لكن ما أنت وحبان قيمين كرا وحبان كرا وحبان وجه لكن ما أنت والسومال اللي عنده حديد وليبه بس الرحى أنا وأنا سكبة صلى الله عليه وسلم وحي يسوق شهيد أما يقول تقالنتا ما سميه كتشته أو ترى هذا إذا عدالة الرأي يا إذا عدالة كويسة أنا أقول ما أنت نوين وحقيبين كريانا ما أنت نن حبت هذا أما يرى هذا عدالة الرأي السومالي اللي انكشرته أما أن كهذا الكريم أو قرت هذا تيجي كريم هذا يشرت حتى قد أن قرت هذا تيجي كريم أو أن دبكو أركين إنه وحشاقه هذا الله ديده وأنا وضع على هنا السومالي لاني متشر أنا كوري هوس بتشوقه هذيك المدة أنا ما أنت قف يقول هذا عدالة درة شرتان عدالة درة قف كواسدة وإندهيس هذا بقوله لكن سؤال الله شن مدحوينا صومر يصدح برهير برعاها وربنا يصدح رهير برعاها ما حسوس ندين ما حسوس ندين هذا الحسوسين تيم حضرنا ورد صدح برهير برعاها هنا عقال سيلان يا عبد الرحمن طور مهال غير برعاهي أول بصدح الدقمة برعاهي وحالا رنتها وقاها الليا ما أهدتك أمد السومالي لو أمد اسكمدة وأمد وحوض له وأمد اسكطاء وأمد وضع النورة وأمد دل إيا ديغان له وأمد أباهان إلى هراو صعوته وحي قبيعنا إلا دمية اللو باهي oo laga wada hadlo hadii cidi wax tirsato dhaqan baynu lahayno waa laga wada hadli jiray waana la isu iman jiray lama oran karo maxaa wax loo tirsan laakiin wada hadal iyo gorfayn iyo isla garasho iyo qiimayn iyo isla eegis baa taladu u baahan tahay markasta وسيران النهاية أنا هذا وزير بنا عدي خلدم هي عدي اللي قدرين هي حقبان أولى هي إن عندجيستو أو مش كتراد خبوا أسوء أنجيو أو أنكوير هذا تذكرني حق سيليهين وإنه هذا الله قربان نواركا ولا وح أيوبهين أول الربو إيوح لقط وزير نمو تيل لقى بقيتشري ما هي دولة ديمقراطية بين الشغلة ماذا حوينوه وحنوع عقتي إن أنا لا طالبنا أو واحد خلطان يا واحد ساعة وشايفنا معها نن انتو اسكاي ما دو ان وحنا سو جيدين كرين وحنا شيغي كرين وحي صحنا اورن كرين وحا صح وحي خلدنا انا اورن كرين وحا صح خلدن cid kasta iyo qof kasta meel kastuu joogo diyaar baan u nahay inaanu dhageysano oo goobteeda tagno oo aanu la barfayno oo haddii waxa wax ka jiraan aanu idhaahno waa sax khalad baa jiray hala soco warbiyaana sidaa awoodi karin maxaynu qoriga isugu qaadanaynaa maxaan dhibaan hor lahayn loo abuuraya tii hore ciidankii qaranka oo ku jira aaga in maalin kasta fadaado dhinacooda ka socoto oo la dhinac maro oo la yiraahdo halkay ka bilaamatay halkan ay ka socotaa meel xaqta
maalintii Soomaaliland lagu dhawaaqay nin reer barameeda yaa ka hadlay oo sheekh ah oo markii dambena gudoomiye ku xigeenka guurtida ah wuxuu yiri ingiriis baad la timaadeen reerka dhaxo haday dhageysta ama jeclaada ama ha jeclaanina ingiriiskii baanu idinku raacnay haddana waxaad tidhahdeen xamarina geey iyadana waanu idinku raacnay haddana waxaad tidhahdeen waanu la soo noqon iyadana waanu idinku raacnay maxaa nooga garantiya inaydin berri tanno odhanayn aynu haddana dib u noqon waa nool yahay ninkii sidaa yidhi waxaa layna ku tilmaamaa dad go-aanada si emotional u qaata oo caadifiya u qaata waxaa layna ku tilmaamaa dad aan go-aanka waqti siin oo aan ka garaadaynin oo aan dhan kasta ka eegin waxaa laygu yidhi islaam baa markii maxamed siyaad dhintay alaa gurigaa dhowr jeer laga dumiyey burco waa tii dhowr jeerna la isla jiirjiiday tii horena waa tii ka horreysay maalin dambe ubaa b b cdii ku dhufata oo la yidhi maxamed siyaad oo nairobi ku geeriyooday meesha la yidhaahdo nigeria aad bay u yaabtay waa soo baxday gurigay marba hareeraha eegtay noloshay ku noolaan jirtay bay eegtay dhowr jeer baa la isla jiiray markaasaa ay soo baxdayoo waa ninkii ina siyaad miyuu dhintay ha oo cuquba ku dhacday haddii ninku sidaa isaga dhimanayo maxay guryaha iyo hantidayada nooga baabiinay yay tidhi intii ay garatay caqli fiican bay ku fikirtay sababtoo ah qof kasta oo bini aadani wuxuu leeyahay feker iyo minqiyaas oo ka shaqaysto war xitaa haddii fekerka ama qofka anigoo wasiir haddaad diidan tahay wasiirku wuu tegaya waxay noqonaysaa wax qof kasta oo Somaliland taabta haddaynu inagu maanta waaye arag ka noqon weyno dhib iyo nabadgelyo darro iyo xabad qaadashana inta aynu nool lahay iyo wiilkeennu waaye arag ka noqon maayo dhib iyo xabad iyo rabshad iyo nabadgelyo darro ka noqon maayo hadda ma fogeyn halkan anigoo maraya halkaa waxaa la soo saarnaan jiray qori beeka ema masaajidka jaamac adaguna halkan aanu mari jirayo markaad roon abowdka marayso yaa la odhan jiray deadly position hadda waa dee waa ma rabo inaan ku dhex dhaco laakiin waa tusaale rabsha ina ku filan gaadhiga aada loo ceydhin jiro dhowr jeer buuna hor dhigay baas annagu halkan ka laabanayna waa laga yaabaa kii markaa qoriga sitay inuu maqlayaan waxaan uga jeedaa dalka iyo dadka aynu rabnaa inaynu dhaqanno waxa weeye waxaynu u baahannahay inaynu xusuusteenna dib u celinno sallaxan baabay hor fadhiyeen inaynu xusuusta dib u celinno naalo war shalay meeshu maxay ahayd waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynaya wixii ammaanahay oo wasaaradda iyo howlaheeda niman baa ka hadlay waxaan ku soo gabagabaynayaa ummadda waxaanu u baahannahay inaynu wada hadalno ciddii wax tirsanaysa goobta meesha iyo waktiga iyo meesha lagu hadlayana cid go-aamin karta oo geyn karta talada baana hadda xamse sida uu ku yimid inuu gobolkan gafratoore ka noqdo talaan ku lahaa ama talaannu ku lahayn waxaanu ku qanacnay
annagoo waftiyo halka nimid anugu xamse maanan hebel maanan odhan hebel maanan odhan halkaa ha la geeyo oo haddaanan been sheegayn xamse gobernatooraha laga dhigo maanan odhan laakiin maalintaanu madaxweyne ku-xigeenka iyo aniga iyo rag kale halkan marnimi ee qolo aanu isku furtuuray ee aanu markii dambe wada hadalnay waxaanu yaqiinsannay in ay u baahan tahay gobolku in tacaadul ka jiro oo cabashada cidi sheeganaysaa ay wax ka jiraan sidaa daraaddeed madaxweynaha waxaanu u soo jeedinay inuu baalans gareeyo